daawadayaasha ku xiran warbaahinta Wadani Radio and TV waxaa halkan idinku soo koobaynaa qodobadii ay maanta ay jeediyeen madaxda maamul goboleedyada uu maanta shir kaga furmay magaalada Dhuusamareeb waxaana ku hormaraynaa nuxurka qodobadii uu jeediyay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug. shirka wada tashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Dhuusamareeb iyadoona madaxweynaha Galmudug uu bilaabay hadal jeedinta shirka. madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor ayaa sheegay in shirkoodu uu ku saleysan yahay sidii dalka ay ugu dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah. waxa uu aad ugu dheeraaday inay muhiim tahay in la ilaaliyo dhaqan siyaasadeedka Soomaaliyeed ee sanadyadii ugu dambeeyay ahaa in 4 sano kasta ay dalka ka dhacdo doorasho. madaxweynaha ayaa xusay in gogoshan ay tahay mid loogu hadlayo mustaqbalka siyaasadeed ee dalka isla markaana ay diyaar u yihiin inay isku keenaan ummadda Soomaaliyeed. waxa ugu dambeyntii uu xusay in muhiimadda ugu weyn ee shirka ay tahay in la helo doorasho ku dhacda waqtigii loogu talagalay. dhanka kale madaxweynaha dowladda Puntland ayaa isna fariin u diray dowladda federaalka Soomaaliya maadaama uu ahaa madaxweynihii labaad ee ka hadla shirka maanta ka furmay magaalada Dhuusamareeb. madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdulaahi Deni oo ka hadlayay shirka ayaa ammaanay maamulka Galmudug oo fideeyay gogoshan shirkan isagoo bogaadiyay dadaalka reer Galmudug u galeen inay xaliyaan arrimaha dhexdooda wada hadal iyo wada xaajoodna la galaan dariskooda Puntland isla markaana ay dhigaan gogosha qaran taasoo ay muujinayso inay yihiin dad u taagan horumarka dalka uu maanta hiigsanayo. shirkan ayuu xusay in ummadda Soomaaliyeed uu ka saari doono walwalka ay ka qabeen dalka in ay doorasho ka dhicin. madaxweynaha dowladda Puntland ayaa tilmaamay in shirkan si gaar ah uu diiradda u saari doono sidii loogu tashan lahaa doorashada soo socota. madaxweynaha uu xusay in rajo laga qabo in la soo afjaro khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleed dalka jira. madaxweynaha ayaa sheegay in siyaasad jahwareer ah ay ka taagan tahay Soomaaliya isla markaana loo baahan yahay hanaan isku tashi oo fududeyn kara in horay loo socda. Deni ayaa aad ugu dheeraaday eedeynta dowladda dhexe ee Soomaaliya oo loogu bartay sanadadii ugu dambeeyay. madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa fariin u diray madaxda dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo sheegay inaysan shareysanin shirka ka socda magaalada Dhuusamareeb isla markaana ay tahay shaqo laga bartay ay qabanayaan maamul goboleed dalka jira. madaxweyne Deni ayaa cadeeyay in doorasho qof iyo cod ah aysan u muuqanin laakiin loo baahan yahay in loo gudbo wixii fududeyn kara in doorasho dalka ay ka dhacdo. dhanka kale nuxurka qodobadii uu jeediyay madaxweynaha maamulka Jubbaland madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo khudbad ka jeediyay shirka Dhuusamareeb ayaa sheegay inay ka go'an tahay sidii loo badbaadin lahaa dalka loona qaban lahaa doorasho ku dhacdo waqtigii loogu talagalay. madaxweynaha ayaa xusay in ugu baaqayo dhammaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay noqdaan xaldoon inta lagu guda jiro hanaanka kala guurka dalka. waxa uu tilmaamay inay xaq u leeyihiin maamul goboleedyada in ay shiraan oo ka hadlaan xaaladda dalka loona baahan yahay in dowladda dhexe Soomaaliya ay la tashi la yeelato si loo helo xasilooni. waxa uu intaa ku sii daray madaxweyne Axmed Madoobe shirka muhiimadiisa waxaa rasmi ah oo doorashooyinka iyo siyaasadda waxa ay dowlad goboleedyada ka dhaxeeya intaba saameyn ku leh ma laha dowlad goboleedyada go'aan ka gaarista arrimo badan laakiin tashi ayay ku leeyihiin mana doonayaan shaqo aysan iyaga lahayn in ay qabtaan inta ay xaq u leeyihiin ay ku darsadaan taladooda weeye. dhanka kale waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ahna madaxweynihii afraad ee goobta khudbadda ka jeediyay. madaxweyne lafta gareen waxaan ka tashanaynaa doorasho si loola wadaagi lahaa. madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa khudbad ka jeediyay shirka maamul goboleedyada ka furmay maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la ilaaliyo hanaanka ugu muhiimsan ee bulshada Soomaaliyeed ee ah in 4 sanaba mar la qabto doorasho. waxa uu sheegay in shirka wada tashiga dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka uu yahay mid muhiim ah oo ay ka tashanayaan ayahooda. waxa uu ammaan u jeediyay dowladda dhexe federaalka Soomaaliya uu sheegay inay qabatay wax wanaagsan uuna aaminsan yahay
go-aankii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. Ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle, waxauna markaasi halkaasi ka jeediyey khudbad uu kaga hadlayay maqaamka magaalada Muqdisho. Madaxweyne Waare, magaalada Xamar waxaa laga qaadaa 1 milyan, waana madaxweynihii shanaad ee ka hadla goobta. Madaxweynaha maamulka Hirshabelle ayaa noqday madaxweynihii ugu dambeeyay ee khudbad ka jeediyay shirka madaxda maamul goboleedyada ee ka furmay maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Madaxweyne Waare waxa uu mahadceliyay dhammaan shacabka iyo xukuumadda Galmudug sidii sharafta iyo maamuuska lahayd ay u soo dhaweeyeen wafdigiisa iyo dhammaan ka qaybgalayaasha shirkan. Waxa uu madaxweynuhu rajo wanaagsan ka muujiyay in shirka uu noqdo mid wax badan loogu qabta arrimaha siyaasadda dalka ka taagan oo ay ugu weyn tahay arrimaha doorashooyinka. Madaxweyne Maxamed Cabdiwaare ayaa noqday shakhsiga ugu horeeyay ee soo hadal qaada maqaamka magaalada Muqdisho kadib markii uu sheegay inay tahay caasimadda canshuurta bixiyaha ugu weyn ee dalka. Muqdisho matalaad xaq ay u leedahay. Waxaa hadda noo yaalo in aan ka hadalno maqaamkeeda. Magaalada Xamar waxaa laga qaadaa 1 milyan oo dollar, haddana waxay weheleysaa amni daro, ayuu yiri madaxweyne Maxamed Cabdiwaare. Madaxweyne Maxamed Cabdiwaare ayaa intaa ku sii daray arrinta Banaadir. Waxaan ka xumahay mar walba in la isku warsado aqoonsiga caasimadda waa wada leenahay, si aan raali iskaga nahayna aan u raadinayo yiri maqaamka gobolka Banaadir. Dhammaan 5 madaxweyne ee maamul goboleedyada dalka jira ayaa dhammaantood waxa ay ka wada sinaayeen doorasho waqtigeeda ku dhacda. Cabdinuur Cusmaan Aadan Carays, Wadani Radio and TV, Beledweyne.